iyadoo muddooyinka ugu dambeysay la arkayay in magaalada Kismaayo uu ku soo badanayay maandooriyaha loo yaqaano shiishada ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadda Faanoole ee magaalada Kismaayo oo gacan ka helayay hay'adda saado waxa ay xaafaddaasi ka sameeyeen wacyigelin ku aadan soo bandhigida waxyeelada ay leedahay shiishada saameynta ay ku leedahay shacabka xaafadda Faanoole iyo sidii looga hortagi lahaa maandooriyahaasi munaasabad kooban oo looga hadlayay waxyeelada shiishada ayna ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka culimada diin haween dhalinyaro aqoon-yahano maamulka xaafadda Faanoole iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda saado ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii soo agaasimay munaasabadaasi hadallo fara badan iyo barnaamij badan aan soo diyaarinay oo xaafadda dhexdeeda ah oo dhibaatada lagu haysto shiishada marka haddaan barnaamijka haddaan guda galo wacyigelinta aan ugu talagalay dhalinta xaafadda Faanoole gaar ahaan kuwa isticmaala shiishada ama badeecada runtii xaafadeena Faanoole waxay noqotay xaafadda ugu isticmaalka badan shiishada marka la fiiriyo xaafadaha kale waxaana rabaa in aan u sheego dhalinteena dhibaatada oo ay shiishada leedahay oo intooda badan aysan ka warhaynin xaqiiqadii marka hore waxaa ka fog dhalinyaradeenna inay aaminsan yihiinba baahi shiishada la dhahay inay kaliya leedahay waxa la dhahay steam ay ka faa'iidaan bas steam iyo waxa la raaxa laga faa'iidaa maskaxda ku furaysaa waxa kale jira ay dadkan ay dhahaan waa lagu buurtaa waa ku buurinaysa adoo dhan waxa noqonaysaa la genetic waxa la dhahay adoo dhan murqaa ka soo baxaya laakiin wax waxba kama jiraan waa been dadku waa mashquulina marka dhibaatada baasha inuu warso waa dhibaato zaid xaafadeena wali waa u sii daranta marka haddaan doo dhalinyaradeena waxaan dhihi lahaa barnaamijkaas waa barnaamij khatar oo dadka khatar ku ah wali khatar waxay ku sii tahay qofka oo jiilka cusub oo dhalinyarada soo kacayo oo baasha inta u isticmaal hadhow waxa ka imaanaya barnaamijyo badan oo isbedel asal dhankiisa waxaan dardaarmayaa gabdhaha xaafadda Faanoole waxaan gabdhaha u sheegayaa in ay luminayso mustaqbalka dambe ay saameynayso ku yeelanayso xitaa waxaa macquul ah inay saameyso sharafta familkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo waxbarashada inta badan waxaa ceeb ah inay maanta ku badan tahay gabdhaha in ay maanta ku badan tahay gabdhaha isticmaalo shiishada xaafadda Faanoole sidoo kale ayaa waxaa madasha ka hadlay odayaal haween iyo culimada diin ka soo qayb galay munaasabada hadalka dhalinyarada muqaadaraadka iyo macnaha ay ka hadleen waxa loo baahan yahay wixii Soomaaliya iyo Afrika iyo adduunka dhan midooday ahayd waxa loo baahan yahay in laga hadlo waxa weeye meeshaan macnaha aan u nimid iyo dhalinyarada waxay noo soo bandhigtay in la adkeeyo oo nidaamka asaga la adkeeyo oo wacyigelin laga sameeyo oo wax fara badan oo munaashaqooyin laga sameeyo ayaa loo baahan yahay waxaan meesha isugu nimi maanta barnaamij ah inaan wacyigelino maadaama laga soo xulay xaafadayadii inaan wacyigelino inta aan ka soo tagnay kana aan wacyigelino maxaa lahaa waxyaalaha muqaadaraadka ah inaan ka wacyigelino ayaa meesha la isugu keenay فكر أنا كنت أعمل هذا ما صدقني أنا اللي قاضي الفكر كسلم كا برنامج واحد جرو شيشدان كوبا ضمت قولوا هاي أبي جوجان شيشدان تالا قولوا هاي أبي جوجان شيشدان تالا لأن يرد كل هذا على الدردر قبلها كل هذا على الدردر عبر عبان قانا ويار الروضة عبان قانا هو مسؤولين وليبا حتى يقولوا لو هدار تاني كم مجالنا معشان ويكون بضطي ويكون اتكسر عبده شد يوحال الشيء هذا هو حاوي دين توحي قبطة ومكارم الأخلاق وي أنشأ حميد وي مركا رسول كان وحيري صلى الله عليه وسلم بعثت وهالإيسو بهيبري مكارم الأخلاق ليه وتممها مكارم الأخلاق inaan taam yeelo akhlaaqda bini'aadanka inaan taam yeelo wixii akhlaaq xumaan aan duuliyo intaas la isoo bixiyo rasuulka Maxamed sallallahu alayhi wasallam Cabdullaahi Cabdi Cali oo hay'adda saada u qaabilsan madaxa horumarinta haweenka iyo dhalinyarada degmada Kismaayo iyo sidoo kale gudoomiyaha xaafadda Faanoole Cabdi Fataax Aadan Cabdullaahi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay Faanoole وحافظي شناد صدحات برنامج نوع على نقطة حافظ صدحات
barnaamijkan wuxuu daba socdaa saado waxay qabataa barnaamij la yidhaahdo magaalo joog afka qalaad waxa lagu yidhahdaa civic education dhalinyarada waxaan barnaa waxa ay tahay magaalo joognimadu qofku dhaqanka uu ku nool yahay siyaasadda uu ku nool yahay deegaanka uu ku nool yahay dadka uu la nool yahay waxaasaan dhalinyarada barnaa xaquuqda uu leeyahay tan isaga lagu leeyahay waxa wadaniyadu tahay waxaasaan dhalinyarada barnaa qaybta ay nabadda iyo dhismaha dalkooda ku leeyihiin baa ka mid waxyaabaha xaafadda Faanoole dhalinyaradu soo sheegeen waxay sheegeen inay 10 meelood ay ka furan yihiin oo lagu gado waxyaalaha drugska 10 meeloodba waan soo qabanaynaa wayna nala qayb qaadanayaan markay soo wacaan wixii sharci oo macnaha nalaama way soo wacayaan 10 daqiiqo gudahood baa sharciga lagu horgeynaya anaa ka ballan qaadayo wixii sharciya iyo wixii xun oo xaafadda laga dhex wado waan qabanaynaa waan iska qabanaynaa amnigeena wax yeelaya marka waxaan leenahay dhalinyarada jirta hadda wiil ka hor waxaan soo xirxirnay oo macnaha amni ahaan beelihii lagu gadgadi jiray mobilada carwo istaag ay dadku yaqaaneen mobil baa xadaya isla suuxiiba carwada diyaar ahayd oo lacagtiiba already qofku uu qaadanaya securityna waa laga jibinaya meelihii oo dhan waan soo xirnaa marka waxaan rabnaa wixii meelshii amni daraa meeshii daraagis lagu cunayo waxaba inay dhalinyaradu ay ka soo qayb qaataan maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.